Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka Som TR TV kuna soo dhawaada barnaamijka toddobaadka iyo Turkiga oo aanu ku eegnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca gudaha dalka Turkiga iyo xiriirka Soomaalida iyo Turkiga. Anigoo Cabdijaliil Cusmaan Simo ah ayaa barnaamijka u diyaar ah toddobaadkan hadduu barnaamij ka noqdo. wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo uu heliyay agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxa hay'adda Tika Ilhami Turus iyaga oo ka wada hadlay sidii labada dhinac ay isaga kaashan lahaayeen dhismaha iyo dib u habeynta xarumaha garsoorka ee bulshada looga adeego. intii aysan kulanka qaadan waxa ay kormeer ku sameeyeen xarunta wasaaradda oo lagu wado dib u dayactir lagu doonayo sidii bilicdeeda loogu soo celin lahaa. agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Mudane Axmed Yuusuf Xasan ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay'adda Tika ay iska kaashan doonaan dhismaha xarumaha garsoorka dalka, xaqiijinta iyo sugidda ammaanka goobaha ay ku yaalaan maxkamadaha dalka. bisha cas ee dalka Turkigu waxaan maanta kala saxeexanay heshiis inay kow dib u habeynta iyo dayactirka xabsiga dhexe Muqdisho iyo in ay tababar u samayso dadka ka shaqeeya xabsiga sidoo kalena maxaabiista ku xidhan si ay berrito ama inta ay xidhan yihiin ay u bartaan xirfado kala duwan si ay berrito ugu shaqeeyaan oo xirfadaha ay ugu shaqaystaan ay uga maarmaan dambiyadii lagu soo oogay haddii ay noocay doonaanba ha ahaadaan. heshiiskan waxa weeyaan mid hal sano ah xirfadaha iyo tababarada dib u kaabista ama marka maxbuusku intuu xabsiga ku jiro ka mida waxyaalaha uu xaqa u leeyahay si aan waqtiga uu xidhan yahay iyo waqtiga uu xabsiga ku jiro aanu hadhow u tabin. madaxa hay'adda Tika ayaa yiri waxaan booqasho ku tagay xarumaha ay ku shaqeeyaan maxkamadaha waddanka Soomaaliya waqtiga aan taaganahay waxaa ka socday u adeegidda bulsho cadaalad raadis ah. muhiimadda booqashadiisa ayay ahayd sidii uu ogaan lahaa meelaha u baahan dib u habeynta iyo dayactirka si loo helo xarumo u qalma in bulshada looga adeego. madaxweynaha Turkiga ayaa markii ugu horeysay tijaabiyay baskii koobaad ee dalkan Turkiga lagu sameeyo oo darawal la'aan ah. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ka qayb galay tijaabada baskii ugu horeeyay ee dalku soo saaro kaasi oo ku shaqeyn doona korontada isla markaana si iskii ah isu wadi doono. munaasabadda oo ka dhacday caasimadda Turkiga ee Ankara ayaa waxaa madaxweynaha ku helinayay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dalka Turkiga iyo xubno dhanka tiknoolajiyada ah oo u dhashay dalka Turkiga. soo saarayaasha basaska iswada ayaa kor u qaadi doona Turkiga iyo sumcadda Turkiga ee adduunka ayuu yiri madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo daahfurka munaasabadda khudbad ka jeediyay. Genci gördüğü anda kendiliğinden duracak. Ezmeyecek yani. Şimdi bak yine yayayı gördü ve durdu. Bu bizi yani ülkemizde böyle bir eserin ortaya konmuş olması bizi ciddi manada mutlu etti. İnşallah seri üretime de girecekler. Ve şu anda da bunun adımları atılmış vaziyette. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı olarak böyle bir icadı, icraatı ülkemizde gerçekleştirmiş olmak ve bunu da tabii ülkem adına, milletim adına, tüm sanayicilerimizin adına
Mustafa Varanka wasiirka warshadaha iyo tiknoolajiyada ee dalka Turkiga ayaa isna goobjoog ka ahaa munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan dowladda. Saraakiisha shirkadda baskan ayaa sheegay in baskan iskiisa isu wada oo dhererkiisu yahay 8.3 mitir uu qaadi kara in ka badan 50 rakaab. dhinaca kale sida laga soo xigtay shirkadda soo saarta gawaarida iskooda isu wada ayaa waxaa lagu sheegay in shirkaddu ay durba bilowday wax soo saar ballaaran oo basaska ah. ugu dambeyntii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku amaanay xirfadlayaasha tiknoolajiyada ee dalkiisa dadaalkooda ku aadan horumarinta aagaga tiknoolajiyada casriga ah. muwaadin u dhashay dalka Turkiga kana soo jeeda koonfurta dalka Turkiga gaar ahaan gobolka Diyarbakir ayaa ku guuleystay ku dhawaad 36,000 oo lacagta dalka Turkiga ah isla markaana u dhigantay 5,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ah oo magdhow ah kadib markii laga eriyay goobtiisa shaqada sabab la xiriirta in aanu soo gudbin rasiidka buskud qiimihiisu ahaa 7 senti oo dollarka Mareykanka ah. Yusil Kortukan oo soo maray qareenkiisa galbeen Ilhakan ayaa dacwad ku soo oogay dukaan cunto oo 6 sano ka hor uu ka shaqeyn jiray. wuxuu ka shaqeynayay suuqa 716 maalmood wuxuuna isla dukaankaasi maamulo ka ahaa intii u dhaxaysay sanadii 2013 iyo 2015. maxkamad maxalli ah oo ku taala degmada Kayabinar ayaa sheegtay in Kortukan uu xaq u leeyahay shaqo joojin iyo ogeysiis magdhow ah maadaama heshiiska shaqada ee eedeysanuhu aanu ku cadeyn in laga joojin karo shaqada sabab aan macquul ahayn. qareenkiisa u dooday muwaadinkan oo la hadashay warbaahinta maxalliga ah ee dalka Turkiga ayaa tiri waxaan ku faraxsanahay in hawsha macaamilkayga ay sidan ku dhamaatay oo aan ku guuleysanay dagaalkii sharciga ahaa ee aan u galnay cadaaladda. mar lagu xalin lahaa qaab fudud ayaa shaqo bixiyihii aad u qasaariyay ayay hadalkeeda ku soo gabagabeysay. roobab mihigaan ah oo sababay daadad xoog leh ayaa ka dhacay galbeedka magaalada Izmir ee dalka Turkiga. roobabka mihigaanka ah ayaa sababay daadad xoog leh subaxnimada Talaadada ah magaalada Izmir iyaga oo xanibay halbowlayaasha waaweyn ee aaga magaalada hoose iyo degmooyinka ku hareeraysan magaalada Izmir. maamulka gobolka ayaa ku tilmaamay xaalad masiibo ah waxaana lagu booriyay dadka deegaanka in aysan ka bixin guryahooda haddii aysan jirin howlo muhiim ah. koox ka tirsan dowladda hoose ee magaalada Izmir ayaa hadda ka shaqeynaya sidii loo faarujin lahaa biyaha xad-dhaafka ah ee yaala wadooyinka halbowlaha u ah magaalada. isu socodka gudaha magaalada ayaa hakad galay. gawaarida ayaa ku xayirin wadooyinka dhexmara magaalada taasi oo sababtay saxmadda traafikada subaxdii hore ee Talaadada maanta ah. hay'adda saadaasha hawada ee dalka Turkiga ayaa hore ugu digtay suurtagalnimada roobabkan mihigaanka ah ee ka da'a gobolkaasi kuwaasi oo ugu dambeyn habeennimadii Talaadada ahayd ee xalay ku dhuftay gobolkaasi. warsaxaafadeed kooban oo ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Turkiga ayaa si kula looga cambaareeyay weerarkii argagixisada ay la beegsadeen dad rayd ah oo ku sugnaa hotel Afriga ee magaalada Muqdisho. waxaan si xoog leh u cambaareynaa weerarka bahalnimada ah annagoo tacsi u direyna dadka walaalaheen ah iyo dowladda Soomaaliya
ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda amuraha dibadda ee dalka Turkiga. waxaan ilaah ugu baryaynaa naxariistiisa dadka naftooda kuwa ay weerarka. sidoo kale waxaan u rajaynaynaa caafimaad iyo soo kabasho degdeg ah kuwa dhaawaca ah ayaa lagu yiri qoraalka. ugu dambeyntii waxaa qoraalka lagu sheegay in dowladda Turkiga ay sii wadi doonto ku garab istaaga shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. وهكذا intaasi ayaanu ku soo afmeerinaa guud ahaan barnaamijka toddobaadka iyo Turkiga. waxaa idin socodsiinaa anigoo Cabdijiil Cusmaan Samo. waxa aadna si toos ah uga socoteen telefishinka Som TRTV xaruntiisa dhexe ee magaalada Ankara ee dalka Turkiga. tan iyo intaanu barnaamijka xiga ku kulmi doona talaadada soo socota aniga iyo dhammaan bahda Som TRTV oo isku duuban waxaanu idin kaga tagaynaa. waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijka. nabadgelyo.